kulmiye kasbato dadweynuhu kalsooni buuxdo ugu doortahay kulmiye 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 wadna kaafise kulmiye kulmiye wadna kaafise 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 kulmiye ورحمة الله وبركاته. كنت يا حسب الكلية كنت بتحرك الكوان قبلها قلت يا حقاقة قبلها قلت الفلتة قبلها ضرها لحال وسيلة مرت الشرطة قبلها المساكة يقصد بين حسب الكلية لما تبدأ وحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بما تواصلت فرحولة وقيمة وحام وكعوة ويا فتاك حدد ومرات الطلبات عندك يلا عيوكاك حسب يلا وسيلة طلبات عندك كمان وقتها شان حدد الوفرة وحام كسر ويا حسبك مسؤولية كم السنة وكاك يسرع حسبك الرجل كسر الجروتي يو سياسي تا يو دبلوماسي تا يو فكرة مسؤولية السنة تقولها ما تصل إلى السوق البيئة بيعتبر تدي ورسول الله ويفهم هذا طبعا من حدثنا ويوفر معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحماتا فرحان الله مناسبة قارئة يعني ما أنت حسب الكلية لو ولاية الله كنا سياسيين ورنتي رجعت فرعنا وصاحبنا هاي فرحانية إن ما نعرف كم يدير كيلها كسر هذا حسب الكلية حسب الكلية وربنا الكمسة كنا وحد نوت معدن مرحلة آلية نور أحسن رنتي رئيسياسينا وأرمها برمك يعلمها عالم كلا السعودية وحنفينا إن نفتينا وصوتين إلى كقيق على تام حرمك بلادن اسم الكلية وكولا ما أنت دلك السؤال وعنوان بعد المعلم فرحة وعندما يقرأ السؤال أي صوت وغير يوهلو ليوتا وقال طلع أنه كان ومدري إنها طريقة علم كرك السؤال الآن واجبات كأيه ولو عيوتين وحكراه نوت مع دروناتي يليه مركع ضلكة وما أنت بينه أحسن مريو ومريو يودوي يحوك الأسعار وحرشين يحوك الأسعار إن عاصمات يحوك الأسعار وعن فيليا إذكوا بدل نقول بجوجا إنك كي تعلم وتعلم سياسة علمها الدبلة هي سياسة علمها بلها وحمانتا يلا فرحة إن أي دقائق سياسية أي كولا جامعة من السؤال وبجوج ماليه أي شوقين أما حبنيه حلمان هذا أن كوس رزقه يلبس كي يدورج تأثير يدوري قضية السؤال الآن أي كورب على فعلا يعني حولها صورة أو كتري موتان وحي فرحة عنه شخصي وقعنا حبناها إلي كن عايه قبيلة الآن حبناها ما يحكم عليه وحي بدل كل هاي حبني يقول كده شيء ليس اور دليرا أبويا بيسو بالنا هارتي بركود بدل كتسنا بركود بدلنا وحي ما أقدر هذه الكلام كبير حي يلو شاشة حكتوا لي وكهذا يعني مع سياسة
waxaan leedahay soo dhawaada waxaan intaan ka kalayaa xisbiga kulmiye haddaan idinka warramo waa xisbi le capacity runtii oo qaabili kara amaba se soo dhaweyn kara dadka Somaliland xisbiyadu waxay isku dhaafaan capacity-ga waxaa laga yaabaa xisbigu siduu u wajihi karaa mawjadadii hadday ku yimaadaan waa inaad lahaataa qaraankeedii iyo qorshaheedii beriga aan mucaaridka ahayn markii aan isu qancinnay in bulshooyinka Somaliland ay ku soo socoto xisbiga kulmiye waxaan diyaarinay qorshe ballaaran oo lagu wajahayo oo magacyo kala duwan loo bixiyey gobol-fidinta ayaa la dhowran jiray soo dhaweynta beelaha aan kulmiye markaas xoogga ku lahayn ayaa barnaamijyana ahayd barnaamij horumar oo iyaduna taxabaa jirtay maanta haddii la yidhaaho waa xisbul xaakim wuxuu diyaar u yahay si kale oo dowladaysan isagoo labadiiba isku wadaya inuu idin soo dhaweeyo runaantii waan ku faraxsannahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhawaada dimuqraadiyad baa taalla fikir xora baa taalla lama kala xigo dhammaanta yimi iyo kii hore soo jeegay sibay ugu wada doonaan taasina waxay muujinaysaa bishay siyaasadeed waxaan leedahay aad bay farxad noogu tahay soo dhawaada marka ugu horeysa anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan jecelahay ninkan dadka u mahadnaqin ilaahay uma mahadnaqee inaan u mahadnaqo dad mas-uuliyiintii iyo guddidii kale qabanqaabada ee soo agaasimay xafladan aadka u quruxda badan leh anigoo ku hadlaya magaca xubnaha ku soo biiray xisbiga kulmiye maanta waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin intaasi haddii aan ka gudbo waxaan arki jirnay had iyo goor riwaayadaha marka la dhigaayo qof sii sheega magacyadooda iyo waxay ku matelayaan iyo kooxda dubaabadu waxay tumayaan kooxda ku soo biirtay baan ku horaysiinayaa ee dhabarkoodu sawirradoodu la muuqdaan ee qaarkoodna maqan yihiin cudurdaad la soo sheegtay iyo inta kale waxaan ku horaysiinayaa cabdixakiin garaad maxamuud cali shire oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga ucud ee hore ayuu ahaa oo safar degdeg u baxay insha allah anaan ku rajo weynay inuu shirweynaha nagala soo qayb galo oo iyo qolaana nagu soo wakiishay isagii 4 xubnood oo gobolka Sanaag oo guddoomiyihii gobolka Sanaag ku jiro oo halkan fadhiya iyo xubin guddida fulinta gobolka ahayd anigoo kala magacaygana fursaddan uga faa'iidaysanaya inaan saxo Axmed Cali Ismaaciil iyo Axmed Cali Ismaaciil baan ahay كيسي وها حقيقي جودة حسبيان عيد وحيسين هالكاس هو فديا عبد الرسالة محمود سليمان من كيسي وها حقيقي أرمها جودها يحرير كقبلة يدموينك حسبيان عيد وحقيقي موسى محمود سليمان موسى إسماعيل محمد ومقع سور كان لا يقدر يمر ويتعبنا أيه ويسجل قرض كنا نقول يقانو ويسونا فيجي حسبيا أولي وحكلوا كحيجا يسجنا أحمد محمد حسن بردو وهالك فدي يسونا وقدوميها حسبيا أولي قبل السنة هذا رمتي سعسلي مدلوا يقولوا لك تشوفوا إبراهيم تعالى السلام ويسونا طلابه ويسونا نكابو باليا ويسونا يكون لنا أساسا نعيودا لكن حسبيان وراها إلى سيهنها ودبيهنها ومن بدنا نوشان تيجيب تويسونا الجنائي حاجة سياسة إنت سيادة كيوب بحبه حسب يعودها وحنقول يعني من سياسيين تبلح بنان وهو قامنا يا عبد الفتاح سعيد أحمد عبد الفتاح سفير هو عمرك وراي وقرني إنه ها سفير في وراء أيلان إسلام كان وها حقيقي أرمها الدبدة هوري لكن شرط وحبيش بدلي وحيش بدنا وحاي الله مقعاوي لا تريها من بينها أرمها حريرك عالمية يكون محلقة
runtii shalay markii aan magacaabidda maqalay isla markaana taleexdaa la xoreeyo maqalay waxaan sidii kooxdiinnu kooxooda wada taagantay xildhibaanku guusha uu sheegay taleexna waxaan isku tirinay markii aanu xansannay inay anaga guushaasi nala socotay waxaa kaloo bixiyay isaguna axmed deyl caydiid oo ahaa agaasimihii hore xukuumaddii udub ee ganacsiga wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaa halkan ku xiga isaguna maxamuud axmed nadiif oo isaguna halkan jooga oo ilaa asaasayaashii ururka ilaysanala ahaa udubna nagula jiri jiray laakiin iminka siyaasa madax bannaan ahaa ganacsadana ahaa iyo cabdillaahi ismaaciil cabdi oo isaguna maanta bulcag ka iman kari waayey howlo u gaara awgeed intaasi haddii aan ka gudbo waxaan doonayaa inaan su-aal yar laba su-aalood ka jawaabo labadaas su-aalood ka jawaabaya maalintii ucid aanu ka baxnay horta dhowr baanu kaga baxnay macnaheedu ucid way burburtay maaha waxa weeyaan ucid uu dhintin mayso 6 iyo 7 qof oo ka soo baxay laakiin waxaan qabaa inuu ucid jiro jirina doono waxaananu rajaynaynaa in badiilkaygii ay heli doonaan niman naga sii firfircoon ama naga sii fiicanba waxaan markaasi laba su-aalood baan doonayaa inaan ka jawaabo markii ucid aanu ka baxnay ayay niman nala yaabeen oo magacyo iyo naanaysay saaxiibaday naga daba tuureen waa wejimuku macaasho iyo waa koruhay iyo mabda ma laha balba mabdooda bedbedelaya waxaa kaloo ay haddana markii 2 bilood kadib xantayadii la maqlay iyo inaan u xamaaranayno oo u xusub duubannahay oo waxay xaydanayno inaan kulmiyo ku biirno berigii hore kulmiyo markaan maqallo waxaana mari jiray hanfi iyo dabay laakiin markii ay maqleen inayna caw weliba baraf wadataana bartay ayay naxanteen waxay yidhahdeen waa xaggaa ku socotaan ma kulmiyaad gelaysaan waxay ka dhigeen kulmiya gelistiisu inay tahay in somalilan dafiray jiritaankii oo xamar ka dhigay taasi ayaa markay su-aalahaasi iyo eedahaasi markii aan maqlay waxaanu doonay inaan ka jawaabo war su-aala horta xisbi ma laga bixi karaa xisbi kale se ma la geli karaa intaa markan ka bilaabay su-aashayda ayaa waxaan ku xogsiiyey horta nidaamka xisbiyada badan ee 2001 aynu qaadanay maxaynu u qaadanay waxaan u qaadanay anigu 4 iyo aan ka xasuusanaya faa'iidooyinkeyda oo inaan nidaamkii beeraha ee wax ku dooran jirnay ee baarlamaanka ku dooran jirnay hoggaankii sare ee dalkana ku dooran jirnay in lagu oo la tisqaadi waayey nidaamkan casriga iyo adduunkan casriga iyo dimuqraadiyadda inaynu ku bedelo waxaan haddana nidaamka xisbiyadu waxay siinaysaa fursad siyaasiyiintii odayaasha waaweyni ay madaxa kaga taagnaayeen aana soo hosjida inay balaadkoon iyo saaxad siiso ay iska muujiyaan bataasheerka ama siyaasadda hankay u leeyihiin si ay uga mana dhalan lahaayeen waxaa kalaan isla xisbigu nidaamka xisbiyada badani wuxuu siinayaa qofku ikhtiyaar ama doorasho uu ku doorto ciddu doonayo xaqana u leeyahay inuu u dooran karo intaasi markan ka gudbo waxaan weliba haysa nidaamka xisbiyada badani waa ku suulisay si xunadaysiga qabyaaladda iyo gobolaysiga oo abtirsiintii maanta anigu lahaa axmed aadan ismaaciil markan ka tago somalilaanda waxaan ku soo abtirsaday udub baan ku soo abtirsaday ucud baan ku abtirsaday insha allah iminkana waxaan ku abtirsan doonaa kulmiye intaasi markii aan jawaabteedii hada nidaamka xisbiyada badan inay fahamsan tahay ayaa haddana waxaan isweydiiyey war xisbigu muxuu yahay xisbi baan isii bal componentiskiisa wuxuu ka kooban yahay dul yaraha ku yara hako waxaan xisbigu wuxuu ka kooban yahay waa dadkii waa hoggaankii waa qolihii dhexe waa guddidii fulinta ee heer gobol iyo heer qaran ahaa waa shaqaalihii xafiisyada waa taageerayaashii waa codbixiyayaashii intaa marka wuxuu ka kooban yahay waxaan haddana xisbigu wuxuu ka kooban yahay dukumentiyo iyo qoraalo ay ka mid yihiin dastuurkii xeerarkii barnaamijkii siyaasadeed manifestooyinkii xilliga doorashada uu soo bandhigi jiray codbixiyayaasha iyo siyaasadaha iyo proceduriska
wuxuu aaminsan yahay xisbigu oo faalisiya mabaadi'diisa iyo isla markaana xayndaabka markaas xilaya ma boundarieska uu xisbigu leeyahay qoraalada xisbigu leeyahay waxaa ka mid ah higsi ay official leeyahay wuxuu higsanayo oo ay ka dambayso himilooyin iyagoo qoran oo ku gaari lahaa higsigaasi iyo ujeedooyin himilooyinkaasi kaga mid dhalin lahaa iyo wixii la mid dhaqaale ama ha ka helo deeq ha u helo ama biilaha ku helo iyagana dhaqaale iyo xisbigu u baahan yahay ama xisbigu marka la soo qaado ku soo hormaya xafiis qalab iyo gaadiid lagu shaqeeyo iyo teknolojiyo sawirka marka ka duulay ayaa waxaan isku qanciyey inaan markan xisbiga u ka baxayo ama qofku xisbiga ka baxayaba inuu sawirka marku soo dhigto hadduu saluug ka muujiyo waxyaabaha si aan soo sheegay ama sifooyinka si aan soo sheegay inuu isku qancin karo xaqna u leeyahay historia ama xaq kasta muwaadin u leeyahay inuu ka baxo annaga iyo xubnaha kale marka la eego sifahaas iyo sifooyin ka buuday saluug iyo mugdina laga galay waxaanu doorka inta xisbiga muran ku sidan lahay inaanu ka baxno waxaanu ku xisaabtanaa xisbiga markii hore galaynay ciidana may haafin sidaas ka talalaha jiray waxaanu ugu doonay ikhtiyaar aan ku tagnay ikhtiyaarkayga waan kaga baxnay wixiina laga soo daba tuuray xisbiga haddaan ka tagnayna iyaga waxba aan ka sheegi maayo laakiin haddii himiladayda siyaasadeed iyo higsiga siyaasadeed iyo hamiga siyaasadeed oo arki weynay xisbigaas ama qof kastoo arki waayo xaq uu leeyahay inuu ka baxo waxaana dana isweydiiyey xisbiga banaanta in la galo marka waxaan u samaysanay badan oo mana inkeligii fii hantiwadaaga gacaanka soomaali xisbiga hantiwadaaga keligaaye in qofku xisbigii uu markaasi ku qanco mabaadi'diisa iyo xeeladiisa waxaasi ina uu geli karo xisbiga kulmiye waanu gallay kadib markii aanu ka baalaan degnay dhul iyo fiirana u yeelanay iyo daymo fiican qoraaladiisa iyo dukumentiyadiisa dadku ka kooban yahay iyo waxyaabo badan oo kale waxaan istusnay xisbiga kulmiye raaliga ah haddaan nucu ku qaldamo badan aan nucu lahay xisbiga kulmiye waxaan aragnay inuu u baahan yahay ciidankaasoo nimcadaasi farfadhida dalkeena wixii la riixayna la riixaa wixii ay dhaqaajikadu waa in la dhaqaajiya xisbiga kulmiye maadaama uu yahay xisbiga xukuumadda galay wax badanna qabtay iyada lafteedana waxaan ku dooranay in xisbiga kulmiye galoo ka mid noqono taasaa ka mid ahay saaxiibkii magiisu halka fadhiya ayaa barnaamij ugu waraysay dareenka doonta haaday barnaamijka la yidhaahdo dabeetana waxyaqabadkii xukuumadda ayuu ka sheekeeyey markuu ka sheekeeyey waxqabadkii xukuumadda ayaa waxay yidhaahdeen qolada caayinaysa mucaaradhay waa magiista saaxiibka isagoo xukuumaddiiba soo gelin ayuu maasha allah iyo nimcooyin ka sheekeeyey waa maxay waxaanu arkay nimcooyin badanaanu aragnay ayaanu ka sheekayn doonaa markaanu galno haddii ilaahay eebba yidhaahdo waxaan kaga baxaya hadalkaygii maalin dhexdaas ayaa niman kulmiyaan ayaa iyagoo miyaad arrintan xaggaad u gelaysaa kulmiyaha waxay ahaan jireen dhayhaarka ama xagjidka ah ee aada mabdiyan ku kulmiya ahaa waxaan ku nidhi waa gelaynaa dasoonimeed ka baxday adigu waxay yidhahdeen saal iyo jibbayo iyo aan haysay berigii kulmiyo waa kii naga baxay waxaan ku nidhi haddaba anagu saalkii iyo mingiskii iyo jibbadii imika na gashay kulmiye nadaaya aanu ka jibba keenne niman kalena waxay yidhahdeen qoladiina laabtoobyada sidataa u malayn mayno inaad askarta iyo jabhadda meesha nimanka jooga inaad heshiinaysaan waxaan ku yidhi askarta waanu garanaynaayo xalanaanu soo marnayo dee digna waynu oran dabcina waynu oran nasana waynu oran digtoonowna waynu oran hore u socona waynu oran dub socona waynu oran midig raacna way oran midig u dhaxna way oran iyagana waa la keenaynaayo taasina ugu cabsi maayo maanta waxaan ku faraxsannahay aniga xubnaha iyagu in aanu ku biirno kulmiye xisbi xaakimkana aanu ka mid noqonno waxaan hadalkayga kaga baxayaa ninbaa wuxuu yidhi qof dumar oo si fiican loo soo aasay ayaa wuxuu yidhi waa maxamadii heblaayo si fiican baa loo aasay wuxuu yidhi hadduu waxan kuu raaco si fiican bay kulmiye noo soo dhaweeyeen waxaanu ka sugaynaa balqaybta golaha dhexeeya laga sin lahaayeen iyo waxa kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ومهزين أحمد كيسة وأنا حكسينيا حبيت هذا كمل كا حبنا سفرة بصوبيرة حسبي حاكم كان كولومبيا موسى إسماعيل غردا فضل كسرلو runtii waxaan doonayaa anigu hadal badan uma soo kicin xaflad aad iyo aad u qiimo badan baa naloo qabtay waan idinka mahadnaqaynaa xafladdan naloo qabtay waa ku mahadsantiin runtii anigu waxaan ahaa fayeenkii guud ee xisbiga cud magacayguna halkaa ugu qaldeeyey aniga muuse ismaaciil qarda weeyaan magacaygii nin sharci yaqaanana waan ahay runtii waxaan markaa doonayaa runtii markaanu xisbiga cud ka nimi hoggaanka sare xisbiga cud baanu ka mid ahay guddiga fulintaanu ku jirnay run ahaantii markaanu cud ka nimi xisbiyada waan indhendheeyey markaan eegay xeerarkii xisbiyada waxaanu isu garannay inaan ka mid noqonno xisbilxaakimka talada haya ee kulmiye runtii sidaasaa nagu kaliftay inaan xisbiga kulmiye ka qayb galno oo aan ka mid noqonno run ahaantii wax badan uma kicin waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso ninaan saaxiibnay oo reer Shafiila oo la yiraahdo Maxamuud Jaamac Qodax oo ka mid ahaa dadkii ka shaqeeyay inaan kulmiye ka mid noqdo run ahaantii aad iyo aadna u maadsay waa salaamantii nabaantiiba kabar kale aan ku soo dhaweeyo Axmed Maxamed Xuseen oo ahaa gudoomiyihii hore ee Ceerigaabo walow aan midha xasuustay daytankiisa anigu waxaan ahaa sida uu sheegay gudoomiye xisbiga gobolka Sanaag ee xisbiga Ucud markii aan arkay xisbiga kulmiye wax qabadkiisa oo aan maanta runtii qof dhayalsan karaa jirin wax qabadka iyo geedo socodka uu xisbiga kulmiye ka qabtay dalka Soomaaliland oo aan misii jeedo looga waramay ayaan gudoonsaday inaan ku biiro xisbiga kulmiye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan xisbiga kulmiye oo aan ku soo biiray aniga saaxiibaday waxaan aad iyo aad baan u soo doonaynaa inaan ku biiro wax la qabanno la shaqayno la midowno intaasaan kaga baxayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdi maxamuud saleebaan mingiste oo isna ka mid ahaa hormoodkii iyo saraakiishii sarsare ee xubnaha ku soo biiray xisbiga kulmiye soo dhawow mingiste runtii hadal badan halkan ma harin saaxiibkayba ama saaxiibadayba intii badnayd qaatay laakiin waxaan jecelahay inaan erayo kooban halkan ka imaado ugu horreyn waa sax waxaanu ka tirsanaan jirnay xusbigii Ucid waxaanu ka soo digargoonnay xusbigii Ucid annagoo dhammaantayo ka tirsanayn hoggaanka sare ee xusbiga Ucid halkan ka eedayn maayo cidna ka soo hadal qaadi maayo laakiin waxaan leeyahay reer Ucid haddii aynu kala tagnay isheegeenka dhan runtii ilaa maalintii aanu soo qabanay ama aanu xagga kulmiye u soo baxnay way jireen erayo badan oo naga soo gaaray xag xisbiga Ucid laakiin anagu soo hadal qaadnay gabdhanka badankiisa waxaa dhameeyey saaxiibkay kayse sababihii ugu kalifay in aan ku soo biirno xisbiga kulmiye waxaa ugu muhiimsanaa inta badan xisbiyada mucaaradka markaad eegto waxaa aad iyo aad ugu yar in ay sheegaan ama ay la yimaadaan barnaamij cad laakiin waxaad moodaa xisbiga kulmiye inuu yahay xisbiga keliya ee leh barnaamij cad oo la raaci karo aad loogu mahadsan maalin dhaweysa annagoo qolo asxaaba kafdanayna ayaa waxaan ku idhi waxaad moodaa hadda mucaaradnimadii inay noqotay xanuun qofku markuu mucaarad noqdo waxaad moodaa in xumad fara badan ay hayso
marka waxaan kula kafsamay waa la helay dawadii mucaaridka marka cidii doonaysa inay ka dawowdo mucaaridnimada ay la soo xidhiidho meel halkan aan jirto iclaaj oo la furay dadka mucaaridka laga daweeyo waxaan jecelahay halkan inaan uga mahadnaqo dhammaan intii ka soo shaqaysay intii isu soo bariday xafladan hadday noqoto xukuumadda iyo haddii ay noqoto xusbigaba waxaan jecelahay si gaar ah inaan halkan uga mahadnaqo labada xildhibaan ee cali margaxaan iyo xildhibaan waareeyo oo runtii aad iyo aad isaga xil saaray sida xafladan waa uga gelyahay ugu dambayntii waxaan aad iyo aad u jecelahay laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 16 bisha inaan si buuxda uga mid noqono xusbiga kulmiye wixii tala iyo tusaale wixii aqoon iyo wixii waxtar ah ee aanu haynana aanu kula biirno xusbiga kulmiye kolley martidu waa kala naxdaa oo waxaa laga yaabaa in maxaa dhahdaye qolo naga soo horreysay xusbiyadii dhacay iyo waxyaabahaas iyaga laftoodu ay naga yaraa maxaa dhahdaye yidhaahdaan martida hore martida dambay ka naxdaa dhammaanteed waxaan jecelahay inaynu gacmaha isqabsanno oo sidii xusbigeenu uu xusbi hulban lahaa sidii aynu dalkeenna iyo dadkeennaba horumar gaartiin lahaa sidaa aynu ku wada shaqayno annaguna waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo waajibaadka xusbiga inaanu ka qayb qaadano aad iyo aad waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمعزتي من قصة إمكنا وحن كسر دوينيا مبرفوكا هدي أنا الله حق حسبك أمسك ليش حسبك حق كفربية وحن كسر دوينيا إن قدوميا قربك هواك قبل كبرودجة مرو حسني. الرحمن الرحيم. قدومية حسب الكلمية مدحضة حسب الكلمية دمانتون يصير هذا حلبان هذا كله لما مدحضة شرفت حسبك يوم حبنا شرفت له قيمة له لما نقصد تقول إنتي حسبك لما أنتم وحنكوا سلامية سلامة إسلامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله سلامية كالك حوالك أنا قوم مجلس كوات ليا وهذه الشرارة أيلين قبضة هي حوص بدل هي كلام سلامة يا وحول الله هاي ورجعتي ورجعتي إنت كبعد أنا قوم الناس وين وقرأ لي سلامة يا وحناد سود وين يا حنان كصابير حسبك كلمية أنت تبغى تستقرينه قيمة له قاعة له الإسلام هي ما تحسبك وهو بكتريان ونسول ويننا وحكلام لا هاي حسبك كلمية والدم الهدوي هذا البدين عليك عكسنا من قستية واحد لعليا كيسي ونسول ويننا بدينا نوكيه ليس السلام عليكم ورحمة الله. إمكنا وحنا كسر دوينيا وزيرك حنانة حولها مدن عبد الظاهر وهالك يسمى كورنا خطبتي سودويتها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومية حسبية قدومية كحينة حقيقة جود. xubnaha kale ee golaha dhexe golaha wasiirada xubnaha sharafta badan ee ku soo biiray maanta oo ah maalin qiimo badan xisbiga waan islaamiya mar labaad aad iyo aadna waan idinku mahad celinayaa waan idinku soo dhaweynaa xisbiga kulmiye xubnaha asxaabta ah ee runtii sawirkoodu halka ku yaalaan qaybiinaha halkan ka hadashay qayb kalena maanta aynay suuro gelin inay yimaadaan sida aad sheegteen aad iyo laab furan baan ku soo dhaweynaa xisbiga inaad ka qayb noqotaan waxaan hubaa inaad door shariifa ka qaadan doontaan waxqabadkiisa iyo horumarkiisa idinkuna aad sheegteen hawshaa taalaana ay tahay hawl culus oo qaranka aynu qabanayno waanu
إنكم مد حتى وحي كدم بيا أيضا نلقى عن قبل دونتان أينو سأينو جاني هرمركا دلك سومال لدو جيتين كوبال ولا ليال وحال كان أكو أنا كسر وين حزبي لبقى قلبا وأساسا كو حزب يقول لي هي برنامج سياسي أو عد أو حقبت أو أستانتي سويتاي هرمر أو أستانتي سويتاي قرورين أو أستانتي سويتاي دلقات أو أستانتي سويتاي إن الرسول ما شعب رسول مالنا تاسو عويان حزبك ما تمثل سكوان ويرادو حزبك كل مية حزبك وحده جامية وبرنامج كافية أو ذي وذي أحمد محمود سيلانيو ورتي دمل الهرسدو دينعيدا إنه كتشوجنو تاريخ كلها دكان كلها ما أنتنا كهجا يدرك سومالي لان أو أفر شيء يواستان كل دول دمل الهرسنا أيوه دنوناك يا إنه دمان سكانه شعب كرئيس سومالي لان بري توجا يا قلبي توجا وحدوني أنا كنتي أنا ومدة لا صاحبها مدة بدنا عن معارض وضع هاي وحدوني إنه كتبوا اللجنة أما تاريخ أو كتبوا تاسوا إنه ضل كان هرمر لا جارو من دم لا جارو سومالي لنا أي نقطة ضل إسكمبيدا ضد إسكمبيدا أو ولا لا أو ميلو توتاس دوني أنا كتبوا مرة دول حزب اللي تلنا اللي هاي هجان اللي هاي وجدنا نسمع هاي تا وحيلات هاي كصابيرست ما تا كصابيرتين واحد بدن بيدك قبل كرتان واحد بدن بيدك كتر كرتان مرة بعد وارد كسر دوينا أصحاب بدن وعن سنقانه ورتي هدي ماله وعن قبائل وحوينا تردونا هوشن آديات بارد كسر دوينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسجد وحسين أحمد عيدي وكملا وبجورتا بيرسومان أيوك inkastoo welibana kulmiye iyo urur aad si jecel yihiin xuseen soo dhowow bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidi lmursaliin run ahaantii munaasabadda maanta aan ka soo qaybgelayo ka hadalkeeda waxa weeyaan munaasabad aad iyo aad u sharaf badan waxaa marka ugu horeysa dadweynaha sharafta halkan jooga salaantayda aan u soo gudbinayaa khaasatan gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo hoggaanka inta kale iyo dhammaan dadka xilka ka haya xisbiga kulmiye ee sida wanaagsan u maamula waxaan halkan aad uga salaamayaa dumarka reer kulmiye halgabayaasha ee maalin la xaqsan ee sida wanaagsan ee sharafta leh ee quruxda leh iyo qiimaha badan uu maalin walba aad u moodin inay tu cusub tahay anugu waxaan filayaa raggan sharafta leh ee ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaan in badan baanu iska soo horjeedi jiray markaan anna qurba joogga ahaa kulmiye ama guddoomiyaha ka ahaa kulmiye waxaanu xusuusnahay anu had iyo jeer tv joog ma ahayn laakiin waxaan ahaa halgamaa hoose oo guddoomiyaha oo mar walba xidhiidhiya xisbiga kulmiye markaa raggan saaxiibaday shaashadda ama mar walba ka arki jiray ama aqoonu leeyahay iyagana waan ku soo wada dhoweynayaa xisbiga kulmiye inkastoo aan maanta filayo inay ka faa'iidaysan doonaan ama laga faa'iidaysan doono iyagana qiimahooda insha allahu waxaan leeyahay tii waqtigu yar yahay hadalkana aan soo koobayo aad baad ugu soo dhowaanaysaan xisbiga kulmiye dhammaantiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye mujaahid maxamed kaani axmed soo dhaweynaa runtii
هذا الكيتي سبضني معي ساحي بيان سقل بفرن أو نية سميعة أيام اللي كسر دويننا إلى نجرب النقطان حسبك كلمي والمسكرنا رجعلكم فرديا وعرقي ده أينو كوضع قيد قلي وإذا ما أقول إني إسكاك سهر جيرني محمد هذا سياسة أحسانتا إلى حسبك أوضو إلى إبك أو آتهين محمد هذا حسبك أوعد كسر وليرتين وأمانت كل مية كسر بيرتين سيدنا لا أحسانتا سياسيه وحوي وعدن وبهوي إن أي حنتان أو كالسوري وهران أو عضو هران إن أي دلو كاميان كنا ترتمان صندوق عد بحنت إيه برشادة دلك أي كله ليهين مركا دلك السياسة ده عصبية ذاك سو إسكاك سو هرجيدا معلومة هذا علمي وحنا ونبكر الدوية مرنا أحسانا لك يا هيا الدوية هي برشادة عمنا ولا طعنا يا مرنا وحقر اللو ذي هاي قرن كدنتيسا أحسان لما مد باللو ذي هاي وايو دلك استوى الدوية ذكرها وحوي وقرن قرى مرة من قرن كالدولة ضمام موسى شليت تقول بقى معمول زي ما أنت كل بيها معمول عيا بريتها بيت كلام معمول عيا سؤال شيء سويدينتي وحوي وكان جزء بقصة كانت هي قرن معارض كعايو حسب كل بيه وحسب مدة وقلنا معارض كأحسان تدل كي كمان تجورتها وكل بيه يقعد ما صبري أدب حسب الحاكم واحد هذا الشيء أنا بقول لك كل بيه هنا نقول شيء وقرن عنكم وحنا نقول جبنا نروح برخاتي هاي حسب يقول مركز تأو طلابة قالوا طلابة الموسى تبقى إنه كتاجر يجمع وحنا كتاجر يجمع سياسة النبتقلية الدرك وحنا كتاجر يجمع مركز تأو قرن الدفاعي سعيها ونصاب الشغل إما كقوليها معارض وحيانا فرمضان في شيغان هذا حزب الكلبية سيدي قرضنا نفس الشيء برنامج سياسي ملاحظة وضخم وصور بندقة سيدي سندون ذلك وشيء شواب تيجي كمان تلا روح وين كلبية برنامج كيسي سياسي قاعد بندقة وعيلة تبيل عدو يلا مناسبة درمانتا هذه أكبر من كسور ويننا هذه أكبر نقول لنحي إنكم مرة وترتمينا مرة محاكونا هذا قرن كيف كوضا بإذن حي وحي ترتني هو فري حي قويسك ورارها وضا النور أعطاها يوم ويضو وضا النلين أيام نورشة ترتمى هذه أكبر من كسور دوينينا وهذه كان كسور دوينينا بدوبيها حسكا مصدقين وحفلتنا يوصل ومحسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارة المرشة سوتي ملاحظة القرنكة يمثلت الكلام إكرام الغربة وحماة فرحان الله صديق حزب الكلية معي إلى نسول وينه أخيارة نصوب بكتير مات حزب الكلية أوبضن أقوياء كالسومال الآن هذه أمر من سورينا سيدي خبروي سورينا وحكروا دوريا إن أنا بعض القوم حبلا شن يلحى ولا أصبر كيمين ويا هيدين هذا الوضع وحويا المتابعة والبرفين ولا أصبر ما تأي تهاي halkii guusha ugu weyn in dalka oo dhan xuduudda la gaaro ahayd loo furtay bishii hore aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayna iyo la asbarayna intaa marka laga gudbo dhaweynta waxay tahay hoosba hadal leh kulmiye iyo xukuumaddiisa
dad badan oo Somaliland waxay ka markhaati kacaan in barnaamijkii ay u ballan qaaday sidii ay u ballan qaaday inay hawshiisii wado annagu waxaanu qabnaa haddaanu kulmiyanahay xukuumaddiisa in aanu hayno xilkiina loo igmaday oo weliba aanu isleenahay dadaalka intaa ka sii kordhiya qabyo badan baa dalka u taalle dadka badan in amaana way mahadsan yihiin waxaanu soo aragnaa inay nagu dhiirigelinayaan waxaanu soo ognahay inay hawl badan inoo taalo oo aanu dadaal badan oo kordhino waxqabadkii ummadda balan qaaday aanu ka soo baxno waayo beritaan ummadda u imanaynaa oo leenahay barnaamijkii hore nafsi balan qaadayna waa kanaa intaasna way noo hadhay intaasna way dhammaatay marka waxaanu ku dadaalanaa inaanu barnaamijkayga dhammayno taasaan ugu caqoolka badan ee odayga madaxweynihii وسيدنا إلا أصبري حتى وقوله ولا البلاغات ومضى وقال يفرنا وأنا هوطة لما ما تيجي تصار فاهم ما إنه وين هو مودري وهوش السقالة يا أبو فاهم ما وحمزة ومضى وقال لا إلى الدنيا كي يسيكون منه وحياة يكون لنا يفرنه بايك استوى كينا تعلنا وحنا بعضنا نقعد وحكمنا وقال لنا دليل شيء أنا شيء إنه ما كان هذا دليل صوب حلو إلا إيرو وأنا كنا حلقة دلتنا كنا قادرين فرنتي حلقة سيدليل شا لو تقولي ده إنت أقول مين مرافق قدر كلام كذا وحوي مالما أفراد كيساعدوا الدبي على واحد كم مقلسين يا الله على ويس BBC ده يا فويسكا ay soo qaadayaan ama ay ka dhigayaan wardi leh ciidamada Soomaaliland oo tagay deegaankii Soomaaliland meel ka mid ah oo ay ahayd inay ber hore tagaan ciidamada Soomaaliland oo ku amriyeenaa inay maamul fidintii dalka ka qayb galeen oo degmooyinkii xadka ugu dhawaan ka gaaray waxaa laga soo yeeray xadka gaara waxaan taawanahay Soomaaliland guud ahaan qaranka Soomaaliland gaar ahaan kulmiye xukuumaddiisa siyaasadda ay ka leeyihiin geeska Afrika iyo caalamka waxa weeye nabad ku wada noolaansho deriskeeda gardarro uma tegayo haddii lagu gardarro waxaa lagu waajibay inaan u dul qaadanno si aanu nabadda geeska iyo dalkayga u ilaalino sababtoo ah inta maanta xukuumadda kulmiye hogaaminaysa oo madaxweynuhu ka yahay iyo madaxda kulmiye oo maxamed ka yahay waxa uu waayaa arag u nahay dagaalku u yahay waxa uu waayaa u nahay gardarrada iyo dulmigu waxa uu dhalo waxa uu waayaa arag u nahay fududaanshaha hubka loo qaato iyo dabka faraha laga gala khasaaraha laga kulmo waxa uu ilaahay nasiib noo siiyey oo aan ka soo qayb galnay qarnigii tegay colaadii geeska Afrika ee kuwaanka sare soo jirtay ee diiniga ahayd cunsuriyadda inaanu ka baabino geeska Afrika oo ay maanta geeska Afrika magaca Ethiopia iyo Soomaaliya ay isugu jeceliin oo maanta qofka Ethiopiaanka aanu Soomaali ka qaadan meesha joogtaba qofka Soomaaliga aanu Ethiopiaan ka qaadanay waxaan ka mid ahay dadkii waqtiga qarnigii dambe jabhadii u badnaa ee ilaahay taa ku hanuuniyey ee nabada geeska Afrika soo xasiliyey markaa nagama suurtoodo inaanu geeskan colaad ka abuuro balse waxaan arkaynaa gardarraca waxaa la leeyahay ciidankii Soomaaliya ku duuloo qabsay tare waa gardarro idaacadda tiri waa gardarro dalkayga waa gardarro Soomaaliland xadkeedu waa ka Afrika ku dhisan tahay waa xadkii isticmaalka ka tegey waa ka dal walba oo Afrika ku dhisan yahay kama gudbayno xadka Soomaalilandna nin oo fadhiisan maayo Mareykanna noogu yeelin maayo Ingiriisna noogu yeelin maayo ninkana halkiisa iska daa waxaan codar u sheegaynaa nawaaso geeska Afrika nabad baan horseedinaa ciidanka nabad u wadaa colaad u wado xadkiisu tagayaa dalka xadkiisa ayuu gaarayaa wuxuu ka ilaalinayaa wax alle wixii fidmo wada wixii dalka khalkhal u keenaya wixii geeska khalkhal u keenaya ayaanu soo xidhaynaa
oo aanay ciiqa quwadaha waaweyn adduunku nagu gargaaray waxaana kaga tarin haddana nabadda aanu keennay ay nala qaybsanayaan oo iyagana dan ay u tahay inay ka ogaadaan baan u sheegay arrinkaa waxaan u dheeraanayaa khaladaadka maanta ay idaacaduna baahinayaan dadna ku hadlayaan arrintaasi ma aha arrin wada hadlayo xadka Soomaaliya waa la soo xidhay ciidamadu way tegayaan nabadgelyada geeska Afrika ku jirta tacaalamka ku jirta tayada ku jirta أنا إنتهى بدري بعمره بيان قولك وحنقول شيء الرجال تمانين لسوء حنيجي سيساق ريشة بدولية قلقالو إلى واحد الرجال بهنيه قف لكن قولون يدي جامد الرجال يرجوي لما تودي سوء حنيجي واحد كتير سحتان كيسي كارك أيوة سمع لها تاسنا هذا مبارطو ما توارد عن خميس سبت جمعة سبت واحد شوية وحكي الدربية قد إذا قام قاضي على شكل سوكر نور متعب الأصل آيات ومساتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة كاملة أديقا قرية حسبي كابيه كالنتي وحرشة أديقا قبرية كل حسبي كابيه كالنتي وحرشة أديقا قبرية كل كالسوني دي شغالها أديقا كيلي وكدوراني كل مية كالسوني دي شغالها أديقا كيلي وكدوراني كل مية ودنا كافي سيه 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 كل مية